kulankii finaalka ee tartanka Champions League 2009 kaas oo dhexmaray Barcelona iyo Manchester United wuxuu ahaa mid taariikhi ah oo bedelay jihada kubadda cagta casriga ah. Haddaba waxaan idinkaga soo diyaariyay qodobada ugu muhiimsan ee finaalkaas. Ku soo dhawaada muuqaalka oo faahfaahsan. Qodobkeena ugu horeeya goobta iyo waqtiga. Ciyaartu waxay ka dhacday garoonka Stadio Olimpico magaalada Roma ee dalka Talyaaniga. Taariikhdu markay ahayd 27 May 2009 waxay ahayd habeen indhaha caalamku ku hayaan labada kooxood ee ugu awoodda badnaa xilligaas Yurub. Iska hor imaadkii Messi iyo Ronaldo. Kani wuxuu ahaa finaalkii ugu horeeyay ee ay fool isaga hor yimaadaan Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo. Tartankan ayaa loo arkayay mid lagu go'aaminayo qofka ku guuleysan doona abaalmarinta xiddiga adduunka ee Ballon d'Or. Goolkii hore ee Samuel Eto'o. Inkasta oo Manchester United ay ciyaarta si dardar leh ku bilowday, haddana Barcelona ayaa goolkii ugu horeeyay dhalisay daqiiqadii 10aad. Samuel Eto'o ayaa si xirfad leh ugu xariifay daafaca Manchester United Nemanja Vidic, isagoo kubadda dhex dhigay shabaqa uu waardiyaha ka yahay goolhaye Edwin van der Sar. Xukunkii tiki-taka. Ciyaartan waxay calaamad u ahayd guusha falsafada Pep Guardiola ee tiki-taka. Qadka dhexe ee Barcelona oo ay hormuud u ahaayeen Xavi iyo Iniesta ayaa si buuxda u qabsaday kubadda, iyagoo u diiday Manchester United in ay neefsato. Goolkii madaxa ee Messi. Daqiiqadii 70aad, Lionel Messi ayaa dhaliyay mid ka mid ah goolashii ugu caansanaa xirfadiisa. Isagoo ah ciyaaryahan gaaban, wuxuu madax joog dheer ah ku dhaliyay kubad uu soo qaaday Xavi Hernandez, taas oo soo afjartay rajadii United. Xilli ciyaareedkii saddexleyda koob. Guushan ayaa ka dhigtay Barcelona kooxdii ugu horeysay ee dalka Spain ah oo hal xil ciyaareed ku guuleysata saddexda koob ee ugu waaweyn: La Liga, Copa del Rey iyo Champions League. Pep Guardiola iyo taariikhdiisa. Guardiola wuxuu noqday tababarihii ugu yaraa ee abid ku guuleysta Champions League isagoo jira 38 sano. Waxay ahayd xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee uu tababaro u noqdo koox heerka koowaad ah. Difaaca Barcelona oo daciifsanaa. Barcelona waxay ciyaartay iyadoo ay ka maqan yihiin difaacyo muhiim ah sida Dani Alves iyo Eric Abidal oo ganax kaga maqnaa, sidoo kale Raul Marquez oo kaga maqnaa dhaawac. Si kasta ha ahaatee, Carlos Puyol oo garabka midig ka ciyaaray iyo Gerard Piqué ayaa muujiyay dhabar adeeg weyn. Sagootintii Cristiano Ronaldo. Ciyaartan waxay ahayd kulankii ugu dambeeyay ee Cristiano Ronaldo u safto Manchester United ka hor inta uusan lacag rikoodh ah ugu wareegin kooxda Real Madrid xagaagii 2009. Dhaxalkii ciyaarta. Finaalkan waxaa loo tixgeliyaa bilowgii xukunkii Barcelona ee kubadda cagta Yurub dhowr sano oo xiriir ah. Waxay sidoo kale muujisay in farsamada iyo baasaska gaagaaban ay ka adkaan karaan awoodda jireed ee kooxaha Ingiriiska. Haddaba saaxiibayaal, waxaa inta inoogu eg sheekadeena. Intaan ku kulmi doono sheeko tan la mid ah, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.